marka laga hadlayo jacaylka tilmaamooyin fara badan ayuu leeyahay. maanta tilmaamaha aan ka hadli doono wuxuu noqon doonaa sidee marwo daacad ah ku heli kartaa, sidee sidoo kale ugu dhex muuqan kartaa bulshada markaas ku nooshahay, sidee lagaaga dareemi karaa in marwo ragga u roon aad ka soo arkacday. muuqaalkan intaan u gudagelin waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ee Socdaal 24. waxaan kaa codsanayaa inaad saaxiib nala noqoto, sidoo kale saaxiibada muuqaalka aad gaarsiiso si saaxiib adigoo kale u helno. warbixinteena maanta waxay ka bilaabanaysaa sidee marwo daacada aad ku heli kartaa, sidee adigana xaaji fiican ku noqon kartaa. muuqaalkeena waxa uu ku bilaabanaa sida tan. marka ugu horeyso marwada ayaa laga rabaa in ninkeeda ay soo jiidato, sidoo kale ninka waxaa laga rabaa in gabadha marka hore uu dareensiiyo in aysan u ahayn xaas, sidoo kale ay u tahay walaal, ehel iyo qaraabo. waxaa laga rabaa mar walba inuu u muujiyo naxariis fara badan, taasina waxa ay dareemaysaa mar walba ee naxariis ka hesho gabadha ninkeeda, in mar walba ninkeeda ay u sameyso waxyaabo markaas uu xiiseynayo. ninka sidoo kale waxaa laga rabaa mararka qaar in gabadha uu u keeno hadiyado, haddii ay noqon lahaayeen shukulaatooyinka ama hadiyado markaas uu isleeyahay gabadha waa ay ka heli kartaa. inta badanna gabdhaha waxay jecel yihiin askreemka iyo waxyaabaha macmacaanka iyo faraantiyaal. haddii mar walba aad u keento, mar walba gabadha waxay noqonaysaa gabar aad ku xiiseyso. waxaa la rabaa mararka qaar sidoo kale gabadha inaad la kaftamto oo aad dareensiiso noloshiina halka ay kasoo bilaabatay. abaaye waran habeenkii u horeeyay aan ku dhaho waa ku jeclahay, maxaa dareentay, sidoo xaalka ahaa ka waran. mararka qaar markaa kaa murugaysiiyo maxaa dareemi jirtay, adiga oo qoslaayo sidoo kale u dhoola cadeynayo. markaas gabadha aad ayay u xiiseynaysaa, waxayna ogaanaysaa in jacaylkuusa ahayn waxa keliya kula noosha, laakiin waxay ogaanaysaa in mar walba walaala u tahay. haweeninka qaar waxaa la rabaa sidoo kale gabadha aad jeceshahay in casho sharaf aad u wadid, si magaalada markaas indhaha ugu soo nuursato, asaageedna ay ugu faani karto. sidoo kale gabadha waxaa la rabaa mar walba inaad dareensiiso hantida dunida ugu qaalisan ayada inay tahay, xitaa haddii xaas labaad aad guursanaysid marka hore ayada inaad u sheegaysid oo aad ka farxinaysid. sidoo kale waxaa la rabaa gabadha aad jeceshahay inaad dareensiiso, mar walbana u sheegtid inaad dhahdid abaayo wax walba waa la wey karaa, waana la heli karaa. mar walbana waxaad ku kalsoonaataa wixii aan kuu keeno, aad ayay ku aaminaysaa. mararka qaar sidoo kale gabadha waxaa la rabaa in aad jeclaysiisid ehelka, asxaabta iyo qaraabada. gabadhaasna waxay noqonaysaa gabar furfuran, mar walbana caruurteeda waxay u daryeeli doontaa sida adiga aa u daryeeshid. sidoo kale gabadha waxaa la weydiiyaa haddii caruur dhalno sidee yeeli lahayd, habdhaqameedkooda, labiskooda, waxyaabahaas dhan sidee u maarey lahayd. intaas iyo in lamida haddii aad dhahdid jacaylkaada wuu guuleysanayaa. waxaan la socodsiinayay anigoo Mahad Abuukar Maxamed. Mahad Socdaal waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. adiga ahaan waxaa xiiseyso haddii ay jiraan barta hoose ee commentiga noogu reeb, si muuqaalka kan xiga aan ugu soo qaadano. wax walba waa noo soo gudbi kartaa. Socdaal 24 wuxuu u taagayaa mar walba inuu idiin soo gudbiyo waxyaabihii markaas adinka xiiseynaysiin.